Assalaamu calaykum. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu ballaaran dhulka. Waa qaaradda labaad ee ugu duqsan ama ugu qadiimsan dunida. Waa qaaradda dhaqanka iyo luqadaha. Waxaa ku yaala 54 dowladood. Mawduuceena maanta waxa uu ku saabsan yahay dalalka qaaradda Afrika iyo waxay tahay inaad ka ogaato mid walba. Haddii aad jeceshahay qaaradda Afrika, fadlan like saar videogan kuna soo biir kanaalka. aan ka bilaawno Algeria oo ah waddanka ugu weyn Afrika. Dalkan waxa uu ku yaalaa qaybta waqooyi ee qaaradda. Caasimadda iyo magaalada ugu caansan waddankan waa Algiers. Waxayna dhacdaa waqooyiga waddanka Algeria, waxayna saaran tahay xeebaha badda Mediterranean. Dalkan wuxuu qaaradda Yurub dhoofiyaa gaaska dabiiciga oo ah laf-dhabarta dhaqaalaha waddanka Algeria. sidoo kale Algeria waxay caan ku tahay miraha cherries iyo timirta. Dumarka ku nool waddankan waxay wadamada kale ee muslimka uga duwan yihiin. waxay qayb weyn oo muhiim ka yihiin mujtamaca. taa ayaa keenta in 70% looyarada yihiin dumar. sidoo kale 60% qaadiyaasha waddanka Algeria waa dumar. Algeria waxay leedahay mid ka mid ah ciidamada ugu awooda badan qaaradda Afrika. waxayna leedahay budgetka ugu badan ee ku baxa ciidanka iyo difaaca dalalka Afrika. wadada ugu dheer waddankan ayaa ah 1216 kilomitir. wadadan ayaa ka soo bilaabatay xuduudda Algeria la leedahay Morocco, waxayna gaartaa xuduudda ay la leeyihiin Tunisia. wadadan ayaa isku xirta magaalooyin xeebeedka ugu waaweyn waddanka oo dhan, iyada oo dardar gelisa ganacsiga qaaradda Afrika. mashruuca dhismaha wadadan waxay ka mid ahayd mashruucyadii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika, waxaana ku baxday lacag gaaraysa $11 bilyan. Suudaan waxay ahayd dalkii ugu weynaa qaaradda Afrika intaysan kala jebin 2011, waxayna kala noqdeen Suudaan iyo South Suudaan. South Suudaan ayaa noqotay waddanka ugu yar xagga da'da dunida iyo Afrikaba. dadka dalkan u dhashay oo loo yaqaan South Sudanese ayaa ah kuwa aad u dhaadheer ahna kuwa dhuudhuuban. qofka caadiga ah ee u dhashay waddankan dhererkiisu waa 6 feet ama 2 mitir, waxaana lagu qeexaa dherer, madow iyo qurux. Juba ayaa ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn dalkan. Juba waxaa mara webiga Nile. xukuumadda waddanka ayaa sheegaysa baahida loo qabo inay samaystaan caasimad kale oo bedesha Juba, waxaana loo badinayaa inay noqoto magaalada Ramshell oo dhacda bartamaha dalka. lacagta South Sudan waa pound. wasiirka batroolka dalkan ayaa horey u sheegay in South Sudan uu ceegaago shidaal aad u badan, waxayna rajeynayaan 250 fuusto inay soo saaraan dhammaadka sanadkan. South Sudan sidoo kale waxay caan ku tahay nolosha duurjoogta. kaynta ugu caansan waa Stutt Wetland, taa oo ku nool yihiin xayawaano badan oo naadir ah. xayawaanada kayntan ku nool waxaa ka mid ah deerada, waana meesha ugu badan ay ku nool yihiin shimbiraha shoebill. 115 milyan ku nool Ethiopia ayaa ka dhigaysa dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika. caasimadda dalkan waa Addis Ababa, waa caasimadda ugu sarreysa dhul ahaan caasimadaha Afrika. 2400 mitir ayay kor uga kacsan tahay caasimadaha kale. sanad walba 50,000 oo orodyahan ayaa ka qayb qaata isboortiska loogu jecel yahay oo ah orodka, waana waddanka ay u dhasheen ciyaaryahano badan oo orodka caan ku ah sida Haile Gebrselassie. marka laga soo tago inay Ethiopia tahay dal taariikhiisu fog tahay, Ethiopia waxay leedahay meelaha ugu badan ee hadda qaramada midoobay ee UNESCO u aqoonsan tahay inay yihiin meelo dhaqan iyo taariikhi ah. sidoo kale waxyaabaha cajiibka ayaa ah in taariikhda dalkan ay 7 sano ka gadaaleyso dunida oo dhan. sidoo kale Ethiopia waa meesha laga helay lafaha ugu duqsan oo bini'aadam leeyahay, waxaana la aaminsan yahay in dadkii ugu horreeyay ee dunida ay ku noolaayeen halkan 3 milyan oo sano ka hor. waana mid ka mid ah labada dal ee aan la gumaysan oo ku yaala qaaradda Afrika. 7677 kilomitir galbeedka Ethiopia waxaa ku yaala waddan kale oo aan la gumaysan, waa Liberia. waxay leedahay taariikhda kuwa ugu fiican qaaradda Afrika. sidoo kale waa jamhuuriyadda ugu duqsan ama ugu qadiimsan ee qaaradda oo dhan, waxayna u qaybsan tahay 50 gobol. waxaa caasimad u ah Monrovia oo ku taala xeebaha badda Atlantic. dhaqaalaha waddanka waxa uu ku tiirsan yahay taayirada gawaarida iyo maraakiibta badaha dunida oo intooda badan ka register garaysan halkan. Liberia waxay yeelatay madaxweynihii ugu horreeyay oo dumar ah qaaradda Afrika oo dhan. waxay ahayd madaxweynihii hore ee Liberia Alan Sirleaf. madaxweynaha hadda talada haya ee dalkan waa George Weah oo ah ciyaaryahankii hore ee kooxda Talyaaniga ee AC Milan, ahna ciyaaryahankii ugu horreeyay oo Afrikaan ah oo ku guuleysta biladda laacibka adduunka ee Ballon d'Or. waddankan waxaa ku nool xayawaanka khatarta ah ee Pygmy hippopotamus.
addoomadii la soo xoreeyey ee Maraykanka ku noolaa oo Afrika lagu soo celiyey halka lagu celin lahaa waddamadii ay asal ahaan ka soo jeedeen waxaa lagu soo celiyey Liberia halka oo ay ka noqdeen qayb sare oo bulshada ka mid ah. aan aadno markan mid ka mid ah saddexda dal ee ku dhex yaala dalal kale. Lesotho waxay ku dhex taallaa waddanka South Africa. Lesotho magaceeda oo dhammaystiran waa Kingdom of Lesotho, boqortooyada Lesotho. caasimadeedu waa Maseru. halkii qof ee u dhashay waddankan waxaa loogu wacaa Misotho, marka ay badan yihiinna waxaa loogu wacaa Besotho. luqadda waddankan waa Sesotho. inkastoo Afrika aysan caan ku ahayn in baraf ka da'o, haddana Lesotho waxaa ku yaala mid ka mid ah 7 meel ee lagu cayaaro cayaaraha barafka ee skiga loo yaqaano. markanna aan aadno koonfurta qaaradda South Africa. waddankan waa kan ugu soo saarista badan macdanta dhammaan qaaradda. wuxuu soo saaraa 90% platinumka qaaradda oo dhan, sidoo kale 80% magnesium, 73% chrome, 45% vanadium iyo 43% dahabka qaaradda oo dhan. dalkan waa kan ugu warshadaha badan, wuxuuna leeyahay dhaqaale degan ama xasiloon. South Africa waxay leedahay 11 luqadood oo rasmi ah, dowladuna isticmaasho, inkastoo ay jiraan kuwo badan. South Africa waa waddanka keliya ee leh 3 caasimadood, waxayna kala yihiin Pretoria oo ah halka ay degan yihiin xukuumadda, Cape Town waa meesha ay degan yihiin baarlamaanka, halka Bloemfontein ay tahay meesha ay degan yihiin hay'adaha garsoorka. Johannesburg waa magaalada ugu weyn Afrika, sidoo kalena waa mid ka mid ah 50 magaalo ee ugu weyn dunida oo dhan. 3 meelood 2 ka mid ah korontada lagu isticmaalo Afrika waxaa lagu isticmaalaa South Africa, sidoo kalena 70% biraha tareenada Afrika waxaa soo saara South Africa. buurta Table Mountain oo ka mid ah buuraha ugu qadiimsan adduunka waxay ku taallaa South Africa. Ivory Coast ama Côte d'Ivoire waa dalka saddexaad ee ugu badan oo dadkiisu ku hadlaan luqadda Faransiiska. caasimadda siyaasadda ee dalkan waa Yamoussoukro oo ku taala bartamaha waddanka. caasimadda dhaqaalaha waa magaalo xeebeedka Abidjan, sidoo kalena ah magaalada ugu weyn waddanka oo dhan. dalkan calankiisu waxay isku eg yihiin Ireland, waxa kaliya ay ku kala duwan yihiin calamada labadan dal waa kalarada iyo sidii u kala horeeyaan. Ivory Coast waa waddanka ugu badan ee soo saara cocoa oo laga sameeyo chocolate-ka, waxayna soo saartaa 33% dunida oo dhan, waxayna ka helaan suuqan $80 bilyan. Ivory Coast waxay 2 mar ku guuleysteen koobka qaramada qaaradda Afrika sanadihii 1995 iyo 2015, waxayna kaga guuleysteen 2 marba waddanka dariskooda ah ee Ghana. aan aadno dariska Ivory Coast ee Ghana. warbixin ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka ee IMF sanadii 2019 ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Ghana uu yahay dhaqaalaha ugu koritaanka badan dunida oo dhan. xasilooni siyaasadeed, dimuqraadiyad, dhoofinta dahabka iyo shidaalka ayaa Ghana ka dhigtay in dhaqaalaheedu kor u kaco. Ghana waa waddankii ugu horreeyay ee Saxaraha ka hooseeya oo qaata xornimadiisa sanadu markay ahayd 1957. dalkan ayaa ku yaala dhexbartamaha adduunka marka loo eego maabka ama qariiradda, waxayna u dhowdahay labada qad ee Equator iyo Prime Meridian, kuwa oo kala bara dunida. magaalo xeebeedka Accra ayaa ah caasimadooda. lacagta waddankan laga isticmaalo waxaa loogu yeeraa Cedi. Ghana waa dalkii ugu horreeyay ee Saxaraha ka hooseeya oo hawada sare u dira satellite. waxaa ku yaala haraha ugu weyn dunida oo bini'aadam sameeya, waxaana loo yaqaanaa Lake Volta, wuxuuna maraa 3.6% dalka oo dhan. Ghana waa dalka labaad ee ugu soo saarista badan dahabka qaaradda Afrika, sidoo kalena waa dalka 7aad ee ugu soo saarista badan dahabka dunida. Ghana waxaa ka jira boqortooyo loo yaqaano Ashanti, waana mid ka mid ah boqortooyooyinka ugu waaweyn uguna qadiimsan qaaradda oo dhan, waxaana xuquuqdooda ilaaliya dastuurka dalka. Ghana iyaga oo leh dhismo dimuqraadiyadeed, haddana waxay weli ku dhagan yihiin dhaqankooda. Burkina Faso. micnaha Burkina Faso waa dhulkii dadka sare. dhulkan magaciisa waxa uu ahaa Upper Volta oo ay Faransiisku u bixiyeen, waxaana Burkina Faso u bedelay madaxweynihii hore ee Thomas Sankara. Ouagadougou ayaa ahaa caasimadda ahna magaalada ugu weyn. Burkina Faso waa dalka ugu badan oo Afrikaan ah ee soo saara suufka dharka laga sameeyo. dalkan waxa uu martigeliyey bandhig faashiyoonkii ugu horreeyay ee dhaqanka qaaradda Afrika, iyadoo ku dhiirigelinaysa qaabeeyayaasha sameeya dharka in ay kor u qaadaan kuna faanaan dharka iyo istaylka qaaraddan. xulka qaranka Burkina Faso waxaa lagu naanaysaa The Stallions oo micnaheedu yahay fardaha labka ah.
waxayna ka timid dhaqanka waddankan oo ah in raggu inta badan yihiin fardafuul, ayna ka mid tahay ciyaaraha loogu jecel yahay waddankan. Magaalada lagu magacaabo Bobby Dalazo ayaa iyadana caan ku ah ciyaaraha lagdanka. Caasimadda dalkan ayaa iyana hoy u ah bandhigga aflaamta Afrikaanka ah. Waddankan ayaa sidoo kale caan ku ah dhacdooyinka ciyaaraha baaskiilka.